بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrin aan u arkay inay muhiim tahay oo ku saabsan hooyooyinka. Hooyooyinka aniga waa ka mid ahay amba hooyaan ahay. Alxamdulillah. Marka waxaa jira markaad eegtid ama aan eegay ama idinka dad idinka midoo badan ba ay eegeen hooyooyinka Soomaalida Europe Ingiriiska oo kale iyo maqaan hooyooyinka Soomaalida qurbaha jooga dhibaato badan ayaa haysata, pressure badan ayaa saaran, mas'uuliyad weyn iyo culays iyo magaranaysa waxyaabo badan oo aad wada war haysaan ayaa hadaan hooyooyin nahay aan garbaha u ridanay oo nasaaran. hase yeeshee mid ayaan rabaa hooyooyinka inaan maanta kula taliyo oo aan u sheego hooyo waxaan aaminsanahay aniga tala ahaan ama fikrad ahaan hooyada inay tahay qofka family-ga ugu importantsan ama qofka family-ga ugu muhiimsan inay tahay. family-ga wuxuu ka kooban yahay waa hooyo iyo aabbo iyo caruurta. waxaan aaminsanahay marka aniga aqli ahaan hooyada inay tahay qofka reerka ugu importantsan. marka aan leeyahay qofka reerka ugu importantsan waxay tahay guriga waa ognahay waxa kala wada waa hooyo. hawsha iyo caruurta iyo sida inta badan hooya hawsha wada, aabbo waa banaankaas u sida badan ka soo shaqeeya, laakiin hawsha hooya wada. weliba hooyooyinkeena qurbaha ku noolna hawl dheeraadan wadnaa. taas marka waxay keentay hooyooyinkee qurbaha ku noolaa inay hawshii ku iloobeen naftoodii, taasoo keentay inay hooyooyinkii dayacmaan oo dayac badan ka muuqdo. dayacaasoo maxay ahayd caafimaadkoodii saameeyey, muuqaalkoodii saameeyey, dabeecadoodii saameeyey, meelo badan ka saameeyey. laakiin mashquulka ay hooyada tahay inuu ilowsiiyey problemiskan haya oo dhan ay ku ilowday mashquulka ay tahay iyo mas'uuliyadda weyn ee saaran inay nafteedii iyo wax walbaba ku ilowday ayaa ii muuqatay. marka hooyooyina waxaan idin leeyahay maadaama aan nahay wixii ugu importantsanaa qoyska, maadaama aan nahay tiirkii ugu importantsanaa qoyska, maadaama aan nahay dib isugu noqda, naftiina ha iloobina. maxaa yeelay waa very important inaad maxay ahayd isdaryeeshid. hooyada inay isdaryeesho waa arrin important ah oo aan wada ognahay oo aad wada ogtihiin. marka maxay ahayd guriga si fiican uma function garaynayo, maxaa dhahay guriga hawshiisa si fiican uma soconayso haddii hooyada wax ka qaldan yihiin. marka si uu guriga hawshiisa si fiican ugu socoto oo maxay ahayd reerka noloshoodu nolol macaan oo degan ay u noqoto, hooyooyinka waa inay isfix gareeyaan waxa waaye problemiskooda waa inay si degdega u xalliyaan. hadday tahay problem caafimaad, hadday tahay mid social iyo waxay tahayba mid dhaqaale, waxay doontaba ha ahaatee hooyada waa inay si dhaqso ah isu daweysaa. si dhaqso ah waa inay xal ugu heshaa wax kasta oo gubaya oo problem ku ah nolosheeda. arrintaas waa arrin xalkaas waa xal muhiim u ah caruurta iyo maxay ahayd iyo odaygeedaba iyo gurigeeda iyo siday ugu noolaan lahaayeen nolol macaan oo farxad leh. for example markaa suuqa u baxdid waxaad arkaysaa dacaayado badanna waa naloo sameeyey hooyooyinka Soomaalida iyo labiskooda iyo forjooyin badanna waa naloo sameeyey. laakiin aniga labiska halkaas iga dhig, labiska waa qof iyo dooqiis. laakiin still adoo dooqaagi leh waxaan jeclaan lahaa in waxa aad ku labisanaysid aad xulatid. bilaash ilaan ma aho dukaan aad tagto waa soo ibsatay waxba bilaash laguguma siinin.
waxa aad ku labisanaysid adoo is asturaayo oo diintaadii iyo asturaadii aan ka tagaynin waa inaad dharka aad ku labisanaysid xulataa oo dhar aad xulatay aad ku labisataa ma aha laba kalar oo aan islahayn iska dul gashatid oo aad suuqa dhex orodid ko dad badana maxay ahayd to diinteena sanitary iyo hal is astura iyo jalaabib hala gashta iyo saan hala yeela iyo okay jalaabibkaaga gasho qofna kuma diidayo laakiin jalaabibkaaga gashanaysid waa inaad xulataa ko wajigaaga waa inaad ka fakartaa markaad dadka dhex maraysid oo aad banaanka u baxdid waa inaad wajigaaga haddaad doontid make up marsanine waa inuu ka muuqdaa inaad soo daryeeshay qof haweenaad tahay ha isqurxin laguma dhihin aniga dooq ahaan ha isqurxin laguma dhihin wajiga xooga haba make up garaysanine wajiga xoogaa soo yara dhalaali hooyooyin waxaad arkaysaa xitaa faruuryahaas ay duf yeesheen oo iloobe xitaa faruurta inay kareem marsadaan marka faruurta inay duf yeelatana kareem kaliya xalkiisa ma ahane caafimaadkaaga hoose ayay kasoo jeedaa inay faruurtaada ay taxob yeelato marka hooyooyina waxaan leeyahay dayaca suuqa aad la maraysaan please khaladna ha iga fahmina gabadh walaashiinaan ahay aniga dadka qaar markay iga hor yimaadaan anoo walaashiin ah oo Soomaali ah ayaa dadka qaar markay iga hor yimaadaan naxa waa qiyaasi kartaa dadka maqaarkeena iyo midabkeena iyo sinjigeena neceb maxay idin arkayaan teeda kale inaad is sharaftid oo is qurxisid waxay u tahay maxaa dhahay asset waxay u tahay I don't know asset how to interpret waxay u tahay inaad is qurxisid oo is xanaanaysid waxay u tahay wanaag u tahay ama sharaf u tahay caruurtaada iyo odaygaaga ha iska dhigin qof laga faano iska dhig qof caruurteeda ku faanto kuma dhin isqaawiya waxba dhagax aniga igu soo tuurin waxba ha isxanaajinin waxba giir ha iska kicinin dharka tuur kuma dhihin aniga amba dhar waa gashanahay please si ay caruurtaada kuugu faanaan oo odaygaaga kuugu faano oo communitygaaga kuugu faanaan oo sharafta Soomaaliyeed aad kor ugu qaadid marka aad suuqa soo aadaysid wajigaaga dayacyaan ka muuqan labiskaagana isku day inaad xulatid aadan kan iyo kan aadan soo gadanin wax ismaaj gareynaya ama isku soo baxaya adoo is asturaaya inaad xulatid kaba qurxoon dadka wadankan dibadda aan ku noolnahay I know some of you waxay leeyihiin maxaa naga gala naga iyo gaalada okay waa dhihi kartaa saas daaratid laakiin dhulka aan ku noolnahay waa in bini aadanka markaa ku dhex jirtid ay bini aadan ku arkaan inay ku arkaan ma aha waxaan bini aadan ahayn dhulka aan ku noolnahay labiskaaga waa la fiiriyaa Soomaalidu mahmaahay lahayd hugaaga wuu kula baryo tagaaya la dhihi jiro hugaaga wuu kula baryo tagaa okay marka hugaaga wuu kula baryo tagaaye dadkan markay ku arkaan adigoo ma garanaysaa dayacan fikrad waxay iska qaadanayaan khaldan oo ay leeyihiin fiiri dadkan say u egyihiin say meesha ku marayaan iyo xaggay ka yimaadeen marka dacaayado badan internetada waa noogu jiraan you cannot say oh I don't care waxa dadka dhahayaan I do care waxa dadka dhahayaan caruur yar yar aad dhashay ninaan leedahay haddaad nin leedahay waaye please si nadiifa oo iftiin leh ilaahay qurux badan ayuuna siiyay haddaan Soomaali nahay haweenka Soomaalida cid ka qurux badan ma leh waxa haweenka make up iyo balaaye ismarmarinayaan oo iskala taagayaan haweenka Soomaalida hadday effort-ka naagaha kala sameynayaan ay sameyn lahaayeen waxa waaye cid ka qurux badan ma jirto cid naga qurux badan maqaar iyo color iyo xaq walbaba qurux ilaahay waa na siiyay laakiin quruxdii ilaahay na siiyay qaarkiin qayraad ay doorteen ay ku bedeleen qayraadaasna waa ognahay oo family problems badan ay dabada ku haysaa waa iska warhaynaa marka maxay ahayd to sheeko waxa liiga sheekeeyay
haweenka Soomaalida aroosyada aad ugu labistaan oo maanta waxa laga yaabaa suuqaas inay ku marto gabadha maxay ahayd laba maro aan islahayn iyo kaba busle iyo ma garanaysaa iyadoo dayacan ay suuqa dhex marto aysan she doesn't care laakiin habeenkii ay 300 400 oo baan dirac iyo garbasaar ah ay isku rito markay aroos aadayso marka sheeko waxa liiga sheekeeyay Soomaali aroos Soomaali la soo duubay in la daawadsiiyay nin cadaan ah oo uu madaxa gacanta saaray dadka aan suuqa ku arkay maalintii saan u eg habeenkiina masaani u eg yihiin uu yiri madaxuba gacanta saaray oo wuxuu u qaadan waayay marka maxay ahayd habeenkiiba dirac waa gashataan oo waa isqaawisaane maalintii maxaa idin rafaadiyay aniga ma fahmin Soomaali ahay sheekadeena oo dhan waa ogahay ani habeenkiina nooc maalintiina nooc wax u dhaxeeyo ma jiraan miya wax u dhaxeeyo bal ka fakara isxanaaneeya caafimaadkiina daryeela quruxdiina ka fakara asturaadda waa sheeko kale yaani marmarsiyo ku noqon waa is astura iyo waa iskanayna iyo is astur muslimka kaliya ma tihid muslim wadanka waa ka buuxaan anaga kaliya diinta ma haysano dadka laakiin waxa waa iyagoo asturan ay haddana dharkooda match gareeyaan oo dhar isleh ay qaataan oo isku soo baxaya oo kabaha iyo boorsada iyo maxay ahayd make upka iyo macnaheedu way accessory wax la yiraahdaa jiro oo dharka xitaa adoo asturan waxyaabo aad ku accessorize gareyn kartid like boorso qurxoon kaba qurxoon ma garanaysaa make up or whatever dookhaaga uu yahay adaa og laakiin please saa u soo toostay faruurtaada oo jacjacday wajigaaga oo jacjacsan kabahaaga oo bus leh laba shay oo kala tiiba ah please dib ha loo eego arrintaas please arrintaas dib ha loo eego arrin sax ma aha fadeexad badanana suuqa nootaan dadka waxay noogu soo degdegaan waxayba noo arkaan dad ma garanaysaa aan waxba ahayn oo bini aadan ba ahayn oo meel ay ka yimaadeen ba aan la garanaynin maxaa yeelay dad 20 sano 30 sano wadankan ku nool sida loo labista garanayn aan naga buuxo marka aad tiraadisaan hal isu dhaamana hadda dad badan dhagax igu soo tuurtuuraaye hadda tiraadisaan hal isku dhaamana 10 dhagaxa lagu soo tuuray lagu leeyahay anaga ma gaal aan nahay iyo ma isqaawiya leedahay may gaal ma tishid gaalna ilaahay naga ma dhigo isqaawina kuma lihi laakiin adoon isqaawinin oo diintaadii dhaqankaaga haysta ka fakar sa isu qurxin lahayd hatta caafimaadkaaga haduu wanaagsan yahay wajigaaga inaad marisid uma baahnid wajiga gudaha ka soo nuuraysa at least gudaha xitaa iska dhisa oo iska nafaqeeya oo wax cuna gudaha nalka guduhu ka soo daarmaya wax la ismarmariyo wax ma sheegaan nalka waa inaad gudaha aad ka soo nuurtid waayo oo nalkaaga gudaha ka soo baxo markaas wajigaagana nuuraya laakiin haddaad stressed tahay oo ma garanaysaa qayirantay oo caafimaad darro ku hayso oo dhar madow oo jaakad madow oo adigiyo madow oo wax wada madow habeen iyo maalin madow soconaya aad tahay waa sheeko kale idin sheegaya gabadh keer ka shaqeynaysa waxa la yiri ay islaan cadaan u shaqeynaysa markaasay maalin walba shukay ku tagtaa shaqada shukay wadataa every day habar waayeel habartii marka way fiirisay waxay tiri naagtaan shalay shukay wadatay madow daraad shukay wadatay maalintii way yartay waxay tiri kaale idagayso bari please marka ii iimaanaysid maradan soo bedel maxaa yeelay habartan waxay u maraysaa gabadhan inayna maradan bedelinay maxay to last 2 weeks ay u iimaanaysay ay maradan ugu iimaanaysay oo ayna bedelinba oo maradan ay wasaq tahay oo naagtan ay wasaq tahay ayba waa common sense qofka bini aadanka dhaqankaaga ma yaqaan inaad 12 shuko isku ego madow haysatin that they don't know gabdhaha uga sheegay kaas aniga waa 9 shukaan haystaaye aniga waa 10 shukaan haystaayo madow why aan 9 shuko iyo 10 shuko madow u haysana isku wada eg marka habartii waxay tiri please do me a favor shukada bahalkan madow maalintan ba ii iimaanaysid ha soo gashan markaasay tiri maya bahashan waa iska soo bedelaa noocyo badan aan ka leeyahay wixii u explain gaar habartii waa qaadan weysi waxay tiri ma dhici karto maalmahan oo dhan bahashaas ay igu iimaanaysay please next time adoo bahashan gashan ha ii iimaanin marka mentality-ga dadka aan la nooshay waa kaas dadka aan la nooshay maalin walba markay mara madow kugu arkaan waxay u maleynayaan inaad qof wasaq tahay oo aan maradan soo bedelin oo aan maxay to aan nadiif ahayn marka imagine community-gii aan ku dhex jirnay ummadii ilaahay aan ku dhex jirnay haday aaminsan yihiin dad wasaq inaan nahay oo aan dharka iska bedelin
hadday aaminsan yihiin ka waran ma fiicna because qofka hadduu aaminsan yahay inaad wasaqta oo dharka aad iska bedelin marka aad la hadlaysid ba already meela ugu qoranta waaba yasan tahay waa kuwii uraayo aan dharka iska bedelin ku leeyihiin of course ma urno laakiin viewgaas ay haystaan marka please arrinta aan wax ka bedelno make your husband proud make your children proud make yourself proud dharkan aad gashanaysaan please waa inaad doorataan bilaash laydinkuma siinin waa inaad doorataan oo aad si aad ka fakarteen u labisataan armaajada markaad furtaan armaajadiina aad tiraadaan kan iyo kan aan isku qaato kan iyo kan isma galaan macnihii aad labiskaaga xulatid kabahaaga xulatid koorarkaaga kala badbadashid macnihii yurubaad joogtaa afrika dadka joogaa naga fiican oo si fiican u labistaan afrika dadka jooga way labistaan dadka yurub joogay maxaa ku dhacay depressiona kullina wada haayo depressionka please is look after gareeya la dagaalan depression iyo wixii ku haayo isqurxi videogan waxaan u sameeyay dadkayga tihiin amba waa idin la mid ahay haddii la idin caayo amba waa caayanahay haddii naagaha Soomaalida caayo amba naag Soomaaliyeed ah caydiina waa ay haysataa haddii Soomaalida view laga qabo viewgaas dadka laga qaba amba ku jira waa idin la mid ahay amba idinkama fiicni idinkama duwani sheekada xanta suuqa noo taalo uun baan rabaa inaan ka hadlo waa iyara dhibtay inaan ka hadlo waxaan rajaynayaa inaydan u qaadan ma garanaysaa inaan idin ataagayo ee aad u qaadateen inaan wax idiin sheegayo waa idiin sheegay hooyada waa qofka ugu muhiimsan family-ga very important aan nahay waa inaan maxay ahayd marka nafteena u tiriid garaynaa inaan dad muhiima oo special nahay hooyo haddaa tahay muhiimaa tahay special tahay qof kaa muhiimsan ma jiro marka waa inaad adoo maskaxda taas ku haya aad maxay ahayd wax qabsataa maxaa yeelay caruurtaada ku baahan gurigaaga ku baahan ninkaaga ku baahan dada xitaa waalidkood u baahan yihiin oo waalid haya marka ha i dhibsanina hadaa i dhibsateena raali ahaada waxyaabaha xanta suuqa noogu jira uun baan xoogaha yara dhibsaday oo aan rabaa inaan maxay idinla sheer gareeyo idinkana in badan oo idinka midana waa igu raaci doontiin intaan ogeyna bal ka faa'iideysta hal is cafiyo raalina ahaada videogan haddaad ka faa'iideysateen thumbs up iyo subscription balkana riixa si aad videoyada kalena aanay idiin seegin aad u heshaan maxay ahayto la sheer gareeyo inta aad jeceshihiin insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh